ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ونور ما يستر الدين تينا شرفت بدن قيمها بدن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي الله سبحانه وتعالى إلي ما أنت وإذين ما يستري دينك نعمتي أن إذن كن نعمة دينك أن إلهي وإذين تام يلبولي دين تا إسلام كان وان إذن كرها للنقطة إن الدين إذن نقطة ساس الله سبحانه وتعالى نبي نكسر دشي ما أنت عرفه في حجة الوداع هذا الدين تين ودين ما يسترن أو كامل أو تام هبيراته وح نقصي مله أو ما باهنو إنه تشاب كانه وح كلني معه أما دين مكله أما دقة مكله أن سو واردنه أن دين تكسر بيرنه نبينا صلى الله عليه وسلم أصو أرنك نوت الماما يوحوري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفكي كصدر أرنكينا كنعه ودينك وحان كمد أهين ولو علينا يا النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أقبل مايو وبدعة مردودة ولا ليال wax laga xumaado waxa ah oo runtii laga dhiiriyo in muslimiintii maanta ay gaaladii wax badan kaga dayanayaan qaar badan oo muslimiin ah inay gaaladii ay maaragtay isku ekeysiinayaan oo isku shabahayaan oo dhaqamadii gaalada qaadanayaan waxa taas kamid ah in loo dabaaldego ciidaha gaaladu ciido badan bay leeyihiin ciidahooda oo idil waxa weeye dhaqamo ayaga gaar u ah qaar badan waxay ku salaysan yihiin aqoon iyo diintoodii ku salaysan yihiin wixii kalena waa wax dhaqan ayaga gaar u ah si kastaba ha ahaatee inaan kaga dayano oo ciidahaas kala qayb qaadano ama inaguba aan dhigno ciidahaasi ama dabaaldegyada caynkaasa waa shay xaraan ah culumaduna way isku waafaqsan yihiin النبي صلى الله عليه وسلم وينوغا دغاي ciidahaas iyo wixii lamid ah oo dhaqan oo gaaladu ay leedahay in aan kaga dayano wuxuu nabigu صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم qofkii isku ekeysiya ama isku shabaha qowm ka buu kamid yahay taas macnaheedu waxa weeyaan badaan culimadu waxay tusinaysaa qofkii gaalada dhaqankooda qaata in uu ku dhacayo dambi xaraan ah oo yawmal qiyaamo laga abaalinayo haduusan kufriba gaarin maxay la xadiidka daahirkiisu wuxuu tusinayaa badaan culimadu inuu gaalnimadii ku dhacayo maxay nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam fa huwa minhum kuwaas uu isku ekeysiyay uu kamid yahay حديث الظاهر كيسو حدثنا يا بدهن إنه قال لما كنا عيو لكن قال لما ما قال يسأ والنصوص توعيد كأه وحوي يسير هذا لا قاضنا يو لكن وحلوة هذا دم بوين بكنا عيو أو كفري كله صادرت توحيد سنة إن قال هذا الإسكو شبهه وح خصائص توضع أما الدين كوضع خاص كوه أما دغن كوضع خاص كوه bari waxaan ogsoonay walaalayaal waxay ku beegan tahay sanadii miilaadiga bilowgeedii ama kowgeedii waxaa yiraahdaa ciidaas ay gaaladu dabaaldegaan ciidii ra's sana miilaadiya ama happy new year waxa ka horeysay dhowr cisho ka hor ciidii kale ayaguna gaaladu dabaaldegeen ee waxa weydiintooda ku dhisnayd ee ciida Christmaska أما عيد الميلاد دلشة النبي عيسى إليه ونود بالدقينا لكن وحي آمن سيه عيسى يهي ولد كإله هذا بمركي آد كلاقي بقاعدة تقالة عيده عين كاس waxaad ku aydaysaa kufrigooda gaalnimadooda shirkiga ilaahay ay u shirki yeelayaan diintooda muharrafka ee baatilka ah ayaad ugu hambalyeynaysaa oo ku taageersan tahay ama uu yaraan farxadii aad la wadaagaysaa i'tiqaadkooda baatilka ah ayaad la wadaagaysaa marka waa arin khatarteeda leh wax la fudeedsadana ma aha sida awgeed walaalayaal نبينا عليه الصلاة والسلام
markuu soo galay Madiina ayaa wuxuu arkay al-ansaar ansaar rasuulillaah sallallahu alayhi wa sallam oo u dabaaldegaya laba cisho dabeetana uu weydiiyay wuxuu yiri labadan cisho dabaaldegaysaan maxay yihiin waxay dhahan yaa rasuulallah waa laba cisho maalmihii jaahiliyada kamid ah aan dabaaldegi jiray sidii ayaan dabaaldegeedii u wadnaa markaan islaamnay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay laba maalmood oo ka khayr badan yawm al-fitr wa yawm al-adha وعيد الفطر وعيد الأضحى لبدا عيدود أيو إسلام كليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبدا إسكاجتك أو كوان قات تام معناه ذو حوي دين تين إسلام لبدا عيد بيلاده عيد الفطر وعيد الأضحى أو لبدا بدعاء مناسبة ديني ضبادات midna waxay dhacdaa baada ramadaan markii la gutay ruknigii weynaa ee islaamka soonka ramadaan ayaa lagu soo khatimay ciidaas oo loo dabaaldegaya inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala noo taamiyay siyaam ramadaan midna waxay ka dambaysaa xajkii oo ruknigii shanaad ee islaamka ah markii la gutay yawm al-hajj al-akbar maalinta tobnaad ayay dhacaysaa ciidaas ciid saddexaad oo islaamku leeyahay ma jirto hadaba qofkii ciid kale maskaxdiisa ka keena ama gaalada ka keena waxa weeye waa marduud waa bid'u marduud oo xaraan ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ara gelinaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu tilmaamay sifaat cibaad ar-rahman adoomaha wanaagsan ee ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tilmaantooda inoo sheegay fi aakhir suurati al-furqan ilaahay wuxuu sheegay walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama wuxuu ku tilmaamay cibaad ar-rahman in aysan xaadirin az-zuurka hadaba az-zuurkan macnihiisu muxuu yahay qaar badan oo salafkii kamid ah sida mujaahid dhahaak ar-rabi' ibn anas waxay ku fasireen zuurkaas inuu yahay a'yaadul kuffar ciidaha gaalada aayadaas waxay dhaheen waxay tilmaamaysaa dadka muuminiinta ah ee waxa weeye min cibaadi ar-rahman ah in aysan ka qayb qaadanaynin beentaas iyo khuraafaadkaas oo ah ciidaha gaalada dabcan aayadu inta way ka macna balaaran tahay laakiin waxa weeyaan tusaale ay siinayaan in ciidaha gaaladuna zuurkaas ay soo galayaan سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحوري ورسك إلالية إن أدقشان قالذا ما أنت إذا بلدقيان كنيسته إذا كنت بلدقيان محايل عرض إلهي بكسو دقيسوري فإن السخطة تنزل عليهم عرض ربي سبحانه وتعالى بكسو دقيس محايل وحن يسمينيان وشركوي ووح إلهي عرض قليني dadkii salafka wada ogtiin walaalayaal min as-saxaaba wat-taabiciin wa taabi'i at-taabiciin inaysan u dabaaldegin ciidaha gaalada ayagoo la noolaa dhimmiyiintii gaaladii ku nooleed wadamada islaamka oo u dabaaldegi jiray ciidahooda ciidahan ay maanta gaaladu u dabaaldegeen wax cusub ma aha waa wax intaas oo qarni soo jira weeyaan kun sano ka badan ayaa ciidahan gaaladu u dabaaldegi jirtay kun iyo dhowr boqol oo sano marka wax hadda bilowday ma aha waqtigii nabi kaleey salaam way jireen ciidahani waqtigii way jireen waxa way asxaabtii taabiciintii hadana ma ayna ka qayb qaadanin lama sheegin inay ka qayb qaateen culimadu waxay dhahan walaalayaal xikmada looga digayo inaan gaalada isku shabahno waxa weeyaan qofka muslimka ah hadii uu gaalkii isku shabaho xagga daahirka muuqaalka sare ama caadaadkiisa ama dhaqankiisa ama labiskiisa gaalka haduu isku shabaho waxa halis ah in uu xagga baatinkana ka shabaho oo uu gaalkii jeclaado oo uu dhaqankiisa jeclaado oo uu diinkiisa raali ka noqdo taasina kufri bay gaarsiinaysaa sidaa darteed baa leeyahay iskaga fogaada gaalada isku ekaysiidaan waxa weeye qofka muslimka ah diin buu leeyahay dhaqan suuban buu leeyahay caqiidatul walaa wal baraa caqiidadaas waxa weeye tusinaysa inaad qofka mu'minka ana jeclaato awliyada ilaahay gaaladana aad ka bari noqoto nacdo waxa weeyaan ayaad keenaya inaadan gaalkii isku shabahin ciidahooda aan ka qayb qaadanin inaadan u dabaaldegin oo waxa weeye ciidaha iskaga fogaato
waxa la yaab kale waxa weeyaan walaalayaal gaaladaas inagalama qayb qaataan ciidaheena ma aragteen waligiin nasraani ama yahuudi ka qayb qaadanaya ciidaha muslimiinta ma jirto arki maysid innaga haddaba maxaa naga dhigay kuwo hayraaca oo gaalada oon waxay sameeyaan ku dayanaya oo dhaqankooda qaadanaya maxay naga dhigay taasi runtii waxay tusinaysaa arrinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in ummadiisa laga heli doono dad gaalada raacaya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam la tattabi'unna sanana man kana qablakum شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي حليه عليه الصلاة والسلام waxaad raaci doontaan jidkii waxa weeye dadkii idinka horeeyay taaka u raaci doontaan dhudhun baad u raaci doontaan xataa hadday galaan god abeeso waad ogtihiin waxa weeye waa god mugdi oo cidhiidhi ah oo noolal aysan ka jirin waad ka dabagelaysaan buuri markaas asxaabtu waxay dhayn yaa rasuulallah oo kuwaas aad tilmaamaysa ee waxa weeye dadkii naga horeeyay ee aan sida ugu dayanayno waa kuwe ma yahuudi iyo nasaara markaasuu yidhi waman innaasu ilaa ulaa'ik oo waa kuwa dadka kale eed ku dayanaysaan een ayaga ahayn bimacnaa yahuudi iyo nasaaradaad ku dayan doontaa weeyaan taasna maanta waan aragnaa oo wax aan qarsoonayn weeyaan in waxa weeye dadkeenni iyo bulshadeennii gaaladaa oon ay ka daba dhaceen labiskoodii la xidhanayo qaabkii u jaga xirtaan loo jaga xiiranayo hablaheennii waxa weeye ayaga qaabkii u labisanayaan qaabkii waxa weeye make upkii waxaanay marsanayaan waxa way dhaqankii gaalada la raacay kubadan wad aragtaa adduunka qabsatay gaalada ma inooga timid dhaqamadan foosha xun oo dhan ee maanta waxa way ummadda islaamka kharibay xagga ay gaalada ma inooga timid waxa inagu xaggeena ka yimid maba ahba waxan maanta aan ka cabanayno iyo mukhadaraadkan iyo khumuurtan iyo balaayi baaskan iyo waxan iyo ribadan iyo waxa caalam islaami baabi'iyay ee kala gaabiyay waa dhaqamada gaalada aan ku dayanayna weey marka walaalayaal ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan baraarujiyo dhowr qodob gaalada ciidahooda in la sameeyo waa shay xaaraan waxa kale oo lamid ah culimadu cadeeyeen inaad ka qayb qaadato hadduu gaal kugu yeero inaad ciida happy new year aad ka qayb qaadato ha ka yeelin haddii aad ajiibto dacwadiisa oo aad ka qayb qaadato mujaamalatan xataa adoo ku raali gelinaya adoo ma jeclid laakiin gaalkaas ayaad ku raali gelinaysaa waa gaal aad wada shaqaysaan oo company ka wada shaqaysaan ama calaaqaad ka dhaxeeyaan waxa weeyaan waa dambaabto ogow waa dambaabto dambi aad u weyn ayaad ku dhacday waxa kale oo la mid ah culimada walaalayaal in gaalada waxa weeye loo hadiyeeyo ciidooda oo hadiyada la siiyo waa xaraan ayadna bal ay culimada qaar baaba weyneeyo gaarsiiya xadul kufri nin liidaado Abu Hafs al-Hanafi oo culimada Hanafiyada waaweyn kamid ah ayaa wuxuu yiri ninkii gaal u hadiyeeya baydatan ukun u hadiyeeya ama bayd xabad bayda maxaa ka yar xabad bayda ninkii gaalada u hadiyeeyo yiri ciidooda waxa weeyaan asagoo weyneynaya maalintaas ay u dabaaldegayaan faqad kafara billahi ta'ala ilaahi buu ku kufriyay buu بمعنى وحو تلمامه يا شيخني إن قف كان وينينيو maalintaas shirki iyo kufriga ku dhisan weynay oo xabada beedka ka qayb qaadanayo hadaba maadaama aad weynaysay oo ilaahay geyrkii aad maaragtay aad shirkii aad raali ku noqotay gaalnimaad ku dhacday wiilaya طبعا انه قول كان وشيخ leeyahay macnaheeda ma inaan ayidsanahay laakiin waxa weey waxaan tusinayna culimada qaar halkii gaarsiiyeen shirki ma gaarayo laakiin waa halis weey waxa kale oo la mid ah walaalayaal in gaalada loogu hambaliyeeyo yaada ma ka qayb qaadan hadaa doonto laakiin hadaa ugu hambaliyeeyo ciidooda oo dad happy new year taalaftirkeedu waa xaraan wuxuu sheegay ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitab ahkam ahli dhimma markuu mas'aladan ka hadlayay wuxuu yiri culimadu way isku waafaqeen in gaalada lagu hambaliyeeyo shacaa'irtooda sida ciidahooda oo kale inay xaraanta
inaad dhahdo oo kale ciidaadu way ku barakaysan tahay ama happy new year wixii la midka ah waa shay xaaraan qofka arrinkaas sameeyay wuxuu yiraahdaa hadduu kufri ka nabad galo iyo gaalnimo ugu yaraan wuxuu ku dhacay dambi weyn oo Ilaahay cara gelinaya marka walaalayaal aan iskaga fogaano waxa soo idil diinteena inagu filan ciideena inagu filan aan ku faano ciidaheena iyo diinteena iyo dhaqankeena gaalada dhaqamadoodu iyo nala weynaanin waa cadowga Ilaahay